gabartan waxaa soo guursaday nin ka dhashay qoos hanti haysto balse ka hor inta aan xafladii arooska la dhammaynin ninkeedii uu dhintay. markaas ayaa si degdeg ah loogu fariisiyey agtiisa sidii haweenay baahan. markay wejigiisa quruxda badan ee meydka ah aragtay way murugootay balse gaajo iyo daal darteed waxay qaadatay tufaax si ay u cunto. laakiin markay rabtay inay afka saarto nin ayaa gacanta ka qabtay. yaabka ugu weyna wuxuu ahaa in ninkaasi ahaa ninkeedii la moodayay inuu dhintay. dhammaan dadka waxay u maleeyeen inuu dhintay laakiin dhab ahaantii wuu noolaa. ninka ganacsadaha ah Eoga ayaa hal il ku gartay in gabadhan aysan ahayn gabadhii dhabta ahayd ee reerka Ruin balse ay ahayd gabadh la bedelay. run ahaantii markii reerka Ruin ay maqleen in ninka hodanka ah dhintay waxay dirteen gabadhii shaqaalaha si ay ugu bedelaan gabadhooda dhabta ah si aysan u noqonin aysan. laakiin waxay ogeyn in ninku uu iska dhigayay inuu dhintay si uu ogaado ciddii isku dayday inay disho. markuu arkay sida daacad iyo sahlan ee gabadhu u ahayd wuu kaftamay wuxuuna si ula kac ah ugu jiiday gudaha sanduuqii meydka. laakiin yaab kale ayaa dhacay. gabadhu ma aysan baqin ee si degan ayay ula seexatay. arrintaas ayaa qalbigiisa taabatay. markaas ayuu kaaliyihiisii yimid. markuu ogaaday in ninkii hodanka ahaa lagu guursiiyey gabar reer tuulo ah wuu cadhooday wuxuuna qorsheeyey inuu baabi'iyo reerka Ruin. laakiin ninka hodanka ah ayaa joojiyey sababtoo ah noloshiisa oo dhan wuxuu arkayay khiyaano iyo been balse hadda wuxuu ku dhacay jacayl dhab ah oo gabadhan daacadda ah. markii gabadhu soo toostay waxay aragtay ninka hodanka ah oo gacmihiisa ku sita. halkii ay ka cabsan lahayd waxay tidhi keliya waxaan rabaa rooti aan cuno. ninkii wuu yaabay sababtoo ah weligiis ma uusan arag gabar keliya doonaysa rooti. markaas ayuu ku amray kaaliyihiisa inuu u keeno 2 keeg oo yaryar. markay cuntay farxaddeeda waxay ahayd sidii qof adduun dhan helay.